habeenkii kacday oo tukatay haddii markay tukatay kadibna ay ku tiri xabiibigeeda ay ku tiri ninkeeda ay ku tiri xaajigeeda ay ku tiri kac markii uu xogaha yar gangano nacay kici waayo tukan waayeen ku tiri ma aragtay wajiga biiqa uu ka marisay walaalayaal nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u ducaynayaa oo markaas uu tilmaamayaa gabdhaha qaar qiimaha ay leeyihiin markii ay noqdaan kuwa ku taagan cibaadada iyo khayrka iyo horumarka markay maalintiina ciyaalka ma artay cuntasiintoodii iyo guriga hagaajinteedii iyo ay qayb ka qaadato habeenkan ilaahay subxaanahu wa tacaala xuskiisa ay qayb ka qaadato ee weliba ninkeedana ma artay xagga khayrka ay ku baraarujiso nabigu calayhi salaatu wasalaam u ducaynaya isla xadiiska uu warinayo Abu Daawud uu warinayo ayaa waxaa jira baarti kale uu nabigu calayhi salaatu wasalaam haddii markaas intii labadoodu ay kacaan oo isla tukadaan jamiican haddii wada tukadaan kutiba min adhaakiriina wadhaakiraat waxaa lagu darayaa oo la raacinaya saxiifada kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala xusa iyo gabdhaha ilaahay subxaanahu wa tacaala xusa wadhaakiriina allaha kathiiran wadhaakiraat gabdhaha ilaahay xusa subxaanahu wa tacaala iyo ragga ilaahay xusa subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu u diyaariyey acadda allahu lahum maghfiratan wa ajran cadiima ilaahay wuxuu u diyaariyey dembi dhaaf iyo ajir weyn oo la soo koobi karin walaalayaal haddaan qiisa kaaga soo qaato dadkii hore saalixiintii ahaa dabeecada ay lahaan jireen nin la oran jiray waxaa jira rayaax ibnu camar alqaysi la oran jiray habeenkii ugu horreysay uu arooska galayay ee gabadhiisa oo ma artay carfaysa oo kamkamaysa loo soo xareeyey oo uu doob u ahaa oo markaasi xaaladiisu ma artay maasha allah xaalatul cursi uu ku jiray habeenkii ugu horreeyay gabadhii markii guriga loo keenay ayaa wuxuu damcay inuu imtixaamo markaasuu istuuraa layidhi xagga sariirta waa caruus idil dhowr iyo 30 sano doob ahaa gabar qurux badan loo soo xareeyay maxaad rajaynaysaa wadaad ah dhulka fiirinaya ma sha Allah Allahu akbar waliga aan islaamka hor u eegin ma sha Allah Allahu akbar kubaan ogahay waxa weeyaan waa ma artay ma sha Allah ninka asaga ah markii uu saalixa wanaagsan markii loo keenay inuu imtixaan damcay markaasuu iska seexdaa leeyay dig markaasaa gabadhii iyaduna cajiib bay ahaydba maysanba iska waalinba war ninka maxaa khaldan iyo uu ku nacib yahay iyo guriga habartay ma waxaan cunay waxaan cabba ka waayay iyo inta maxaa u imaaday afaraha maysan galin xagga intay soo qaatay salli ayay salaad istaagtaa leeyay Allahu akbar bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin war haddii makhluuqaadku ka saxan khaliqa ka saxanaya Allahu akbar war haddii qofka makhluuqa uu helmayso uu qiimeeyay ma wehelka ilaahay subxaanahu wa tacaala wax ka weyn oo ka qiimadan baa jira ilaahay subxaanahu wa tacaala maaciyadiisa iyyaka nacbudu wa iyyaka nastaciin أحد لا وهشته الله بس سبحانه وتعالى قيمة بدن أحد لا بريء الله بس سبحانه وتعالى قيمة بدن أحد لا إسكحر أو كنعين الله بس سبحانه وتعالى قيمة بدن مركز سلقاتي تكتي مركز مدد كنيسي أيها واحد روحي تري يا رياح قم سوي استاك مركز يري إن شاء الله سأقوم وانكعد ونروح يرئيك هذه مركز سلادي تكون نقطتي halkii bay kasii wadatay markay haaf layl ay marayso ayaa hadal wuxuu leeyahay aryax qum markaas waa kici doona markay de salaas wax soo dhowdahay afka furatay hoogayo baay aniga yaa isoo kadiyay guriga yaa i keenayay meeshan yaa igu soo khiyaanayay alla halkan laga hurda maxay ahayday guri aan ilaahay laga qiimeeyay baan imaadayay dad ahlu dunyaan u soo galay afkay furatay ninka markaas wuxuu ogaaday inuu gabadh qiimo badan soo guursaday Allahu akbar gabdhihii hore xataa ragga ay guursanayaan rag qiimo badan oo sharaf leh oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u dhubay kursan jireen xataa haduusan ahayn way jafjaf jireen way kijin jireen waxay ku abaabin jireen xagga cibaadada iyo horumarka iyo shaqada iyo bulshada xuquuqadkooda ayay ma artay ku aabin jireen maanta waxa soo baxay kuwa gacan ku dhiglayaan la seexdo ilmo dhalaya maanta waxa soo baxay kuwa umada dhiigooda jaqay kuwa la seexanayo caruur dhalaya maanta waxa soo baxay koo ma aragtay aan warkooda laga sheekeyn karin ba soo baxay gabdhaha waxa leenahay ka hoos ku soo qaadaan warqiyamkii iyo akhlaaqli iyo gobanimadii gabdhaha aaway generation ma soo kaco oo qiimo ma yeesho illa hadiisan dumarkooda aysan qiimo yeelan waxaan ku soo gabagabeynay qisadii Hinda bint Udba radiyallahu anha zaman al-jahiliga waagi la joogay soo islaami ka hor ayaa waxa jeclaan jiro qabi jiray nin la oran jiray Faakih al-Makhzumi ba qabi jiray ninka asaga ah qisadu way dharta laakiin soo koobaya ninka asaga ah ayaa waxa la yiri maalmaha kamid ah ninkaasna wuxuu ahaa lacag leh oo ma artay yar nool buu ahaa oo macnaha badar noolaa oo jeebkiisu qoyahay buu ahaa markaas wuxuu ka dhisay magaalada Makka guri martidu ay degto marka duhurada kamid asagoo gurigii Makka macnaha meeshii gurigii soo seexday Hindana iyaduna ay timado dhinaciinta xogaha ku yar ma artay waqti ku qaateen la yar kala seexday waa guri martidu inta soo albaab leh markaas yar baxalid marka ila hurda Hindana meeshii jiifta oo kaga kacay marka wuu baxay
asoo kaadi wax kuma qoran banaanka jira ayaa nin reebaadiye ah meeshii soo galay markaasuu arka rindo kala taala markaasuu carara leeyiri ninkii oo sii cararaya iyo ninkeedii oo soo noqda indhihi baa isku dhacay markaasuu yiri intuu hunda u yimid lug harantu ku qaaday wuxuu yiri hunda ninkii sii cararayay muxuu kugu sameeyay markaasuu tir wal waxaad ka sheegaysaa waxba kama hayo war kama hayo markaasuu yiri been ii sheegaysaa ninku waa sii cararayay adna halkaad kaligaa jiiftay almuhim wuxuu ku yiri or gurigeennii aad qisadu marka way dheer tahay oo hinda marka aabaheed bay u timido kadibna way iswareysoo markii dambe nin kaahin ah oo kuwa wax sheega ah faalowga oo mashacawdiinta ah kuwa wax akhriya ah ayaa loo keenay ninkii markii loo keenay aabaheed marka wuxuu rabaa inuu gabadha ogaado waxa ku dhacay ninkii baa markuu gabadhii ka falfaaliyay oo wax sheegay wuxuu yiri war gabadhani zaaniyad baa xumaana kuma dhicin waxaan idinku bishaaranayaa nin waxay dhali doontaa buu yiri waxay dhali doontaa malikul arab nin arabta boqor u noqon doonay gabadhani dhali doontaa yaa meesha jooga ninkeedii soo xumeeyo faakih al-Makhzumi la oran jiray iyo ma aragtay waxa jooga Hinda bint Utba odayga Utba ahaba meesha jooga markii inta ay maqashay ninkeedina uu inta maqlay ayuu yiri xabiibi waa ka xumo wixii kugu dhacay waa khaldamay gacanta ii dhib jeeniga isi I'm sorry kan kii kale ilaa wuxuu maqlay gabadhan ay dhali doonto marka secretary ilayka canni iga fogow waxay tiri adigoo kale in boqor loo dhalay ma istaahshidba wallahi aan ku dhalin marka gabayo waxa jira ay soo tirso waxa kamid ahaa in laba cirbadood lagu qodo ceel laba cirbadood in ceel lagu qodo ama waxay tiri nin madow isu dhaqayo inuu cadayeysay u dhici karin yani nin madow soo mayrayo inuu san white noqon karin saas la mid ah adoo waxay soo tiraysaa ayaad iga tahay bay tiri in aadan korkayga taabanin waxay ahaan jireen xataa ragga akhlaaqda xun ee dhaqanka xun haday toosin waayeen way ka tagi jireen dumarka kuwaasi ahaan jireen reerna ma soo kaco raasna ma qaboobo bulshana qiimo ma yeelatay ilaa dumarkoodu ay qiimo yeeshaan maanta waxaanu aragnaa gabdho iska daaye dad macatab qaba nolol la qaybsanaya maanta waxaan arkaynaa gabdho ma aragtay nin gacanta dhiig ku too xinjiruto bam loo ordaya nolosha la qaybsanaya maanta waxaan arkaynaa gabdho rag dalkeeni dib u dhigan nolosha la qaybsanaya maanta waxaan arkaynaa gabdho aan warkooda laga sheegan karin gabdhaha waxaan leeyahay kor isku soo qaada oo gabdhii hore ku dayda oo bulshadan ma soo kacayaan haliin lama dhalayo ilaa adigu haliyeed noqoto barakallahu fiik salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh